sanadu markay ahayd 2008 ayaa shacabka ku dhaqan Colombia waxa ay ku daaleen fahanka roob dhiig ah oo hal mar ka soo daay xagga sare kadib markii ay ku sameeyeen baaritaan aad u dheer waxa ay ogaadeen in uu yahay dhiig bini aadan. waxaan idin haynaa 10 waxyaabood oo ugu yaab badan oo ka soo daay samada. lambar 10 roobab wata jalaatiin. sanadu markay ahayd 1976 iskuusiya waxa ku soo daay roob wata wax shabaha jalaatiin waxay ahayd maado kala duwan taasi oo la fahmi waayay wax lagu tilmaamo culimaduna waa ay fahmi waayeen asalkeedu waxa ay ka samaysan tahay. lambar 9 roobab kalluunyo iyo rahyo wada socda oo samada sare ka soo daay. sanadu markay ahayd 1981 ayaa magaalo ku taala dalka Greega oo lagu magacaabo Natalia ayaa waxa ku soo daay boqolaal rahyo waxay cadeeyeen qayb kamid ah culimada waxbaadha dabaylo zaa'ida oo socday awgeed inay macquul tahay harraha in goobtiisii asalka ahayd ee Afrika ay dabayshu ka soo qaaday sida ay dhacdo taasi ugu dhowba ay uga dhacday dalka Japan sanadu markay ahayd 2009 bishii June taasoo ay ku soo dayeen kumanaan kun oo kalluunyo iyo rahyo yaryar magaalo lagu magacaabo Anchikawa taasoo ay qaarkood ku tilmaameen inay macquul tahay inay daruuraha la socdeen qayb kamid ah biyaha badda halkaasina ay macquul tahay inay ka soo raaceen xayawaanadan yaryar. lambar 8 baraf shabaha kalarka xabxabka amba qaraha waxa jira dhowr goobood oo ka tirsan buuraha ku yaala gobolka Colorado ee dalka Mareykanka ayaa guryihii waxa qariyay baraf uu kalarkiisu u eeg yahay xabxabka amba qaraha. lambar 7 roobka looda soo daay. sanadu markay ahayd 1980 ayaa maruu maraya markabay lahaayeen Japan xuduudda badda Russia markabkii ayaa waxa uu bilaabay inuu hal mar si kedis u gadoomo taasi oo sababtay loo xagga sare uga soo daaday. usbuuc kadib ayaa Russia waxay cadeysatay inay dushooda maraysa diyaarad sideylo taasi ay ka soo daateen 20 lo sababtuna ay ahayd miisaanka oo aad uga tan badan diyaaradda. lambar 6 roobabka lacagta. 2007 ayaa goob kamid ah dalka Jarmalka waxa hal mar ku soo daaday boqolaal iyo kumanaan lacag waraaq ah baaritaan ay xukuumaddu ku sameysay sababta ka dambaysa ayaa waxa ay ku qaadatay toddobaadyo badan balse waa ay fahmi waayeen sababta ka dambaysa lacagtaasi soo daadatay amba qofka soo daadiyay lacagtaasi. lambar 5 roobka kalaryada ah. sanadu markay ahayd 2006 ayaa waxa ka dhacday dalka Hindiya dhacdo cajiib ah kadib markuu bilaabay roobku inuu ku soo da'o kalaryo kala duwan tuulooyin qaar ah si aad moodo in roobka la soo naqshadeeyay balse dhacdadaasi sababta ka dambaysa baaritaan kasta oo la sameeyay waa la gun gaari kari waayay sababta ka dambaysa arrinkaasi. lambar 4 roobka caarooyinka. sanadu markay ahayd 2007 ayaa dalka Argentina waxa ka dhacday dhacdo aad iyo aad cajiib u noqotay kadib markay xagga sare ka soo daayeen caarooyinka ku soo daay tuuladaasi ayaa waxay gaadheen ilaa 10 sentimitir daqiiqada kadibna dhulkii ayay qabsadeen oo qariyeen iyada oo loo waayay haba yaraatee fasiraad cilmiyeysan. lambar 3 roobka beedka amba ukunta. jasiiradda Haiti ayaa waxa ku soo daatay tiro 1800 oo beed oo midmadow taasi oo sababta ka dambaysa la fahmi waayay. lambar 2 hilibka soo daay. sanadu markay ahayd 1976 dalka Mareykanka aag lagu magacaabo Olombo Sambrankesa ayaa xagga sare waxa ka soo daatay hilibyo iyo noocyo kala ah dadka qaar ayaa waxay aamineen inay xagga sare kaga soo mantageen haado sida haada yulida oo kale balse daqiiqada kadib waxa la arkay boqolaal iyo kumanaan googo'yo hilib ah oo xagga sare ka soo daadanaya balse markii ay dawladdu baaritaan sameysay wax tafsiir ah way u weyday iyada oo hawada sare nadiif iska ahayd. lambar 1 roobka dhiigga ah ee soo daay. Colombia sanadu markay ahayd 2008 tuulada lagu magacaabo Toshoko waxa hal mar ku bilaabmay oo ku soo daay roob dhiig ah kaasi oo qariyay wadooyinkii culimada qaar ayaa dhiigaasi qaaday oo baaritaan ku sameeyay kadib waxay ogaadeen marka ay baadheen inuu yahay dhiigga bili aadanka kadib dadkii goobta deganaa aad ayay uga argagaxeen waxayna yiraahdeen waa digniin ka timid xagga Ilaahay. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan ha hilmaamina inaad channelka subscribe saartaan share-na hadahadaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. subscribe oo nagu soo biir waxay inoo tahay tartar iyo dhiirigelin.